بسم الله الرحمن الرحيم وقاموس أكاديمي waxaan halkan u joognaa inaan duubno oo aan ka shaqeyno imtixaankii dhexe ee qaranka sanadkii 2020 markii imtixaan la gelayo arday badan oo Soomaaliyeed waxaa nafta ka qaada welwel iyo murugo ay ka qabaan imtixaanka, laakiin sida dhabta ah ma jiraan wax sida weyn oo laga cabsado. imtixaan waa imtixaan, laakiin dhibaatada ugu weyn ayaa ah in markii magac imtixaan la sheego uu ardaygu baqo haba lagu imtixaamo magaciisa. marka waxaan dhammaantiin idin rajeynayaa inaad guuleysataan imtixaankana aad si farxad leh iyo baraare kaga soo baxdaan adinkoo isku kalsoon aad gashaan. intaas kadib waxaan usoo gudbaynaa inaan ka shaqeyno imtixaankii lasoo dhaafay. halkan waxaa ku qoran sheeko ama sooyaal qofeed lagaga hadlayo gabyaagii weynaa ee Soomaaliyeed Suldaan Xaaji Aadan Axmed Xasan Afqalooc. markii sheekadaasu dhammaato waxaa laga diyaariyey su-aalo doorasho ah, waan iskala shaqeyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. waayahay, su-aasha koowaad ee halkan ku qoran waxaa weeye Xaaji Aadan waxa uu dhashay sanado badan halkan lagu tixay sanadkii 1871 1879 iyo 1917 1877. jawaabta oo saxda ah waa 1871. hagaag, su-aasha labaad, Xaaji Aadan waxa uu ka dhashay qoys ah kalluumaysato, maguurto, reer guuraa iyo reer magaal. jawaabta saxda ah waxa weeye reer guuraa. su-aasha saddexaad, Xaaji Aadan waxa uu ahaa ilmihii koowaad ee dhanka aabaha, abtiga, eedada, hooyada. waan soo aragnay aabaha wuxuu ka ahaa cunugii 9aad, hooyadana wuxuu ka ahaa kii koowaad. sidaas darteed jawaabta saxda ah waa hooyada. hagaag, su-aasha afraad, abwaan Xaaji Aadan waxaa lagu yaqaanay laynta. meesha in yaraan qadeeyo, waxaan kusoo qaadanay cashirkii ama cutubkii 10aad ee buugga maadada Soomaaliga, buugga form 4ka. waxaan ku qaadanay in Xaaji Aadan Afqalooc aabihii uu maaragtay lagu yaqaanay caan ku ahaa laynta libaaxyada. sidaas darteed qofka lagu yaqaanay inuu libaaxyada iyo shabeellada laayo ma ahayn abwaanka, wuxuu ahaa aabihii. sidaas darteed jawaabta halkan haddii aan sideeda u qaadano waxaan leenahay waa shabeelka iyo libaaxyada ayaa lagu yaqaanay inuu lahaa. su-aasha shanaad, Xaaji Aadan xilligii uu caruurta ahaa ma jeclayn inuu guriga joogo, xoolaha raaco, ciyaaro, safro. jawaabta saxda ah waa inuu xoolaha raaco. hagaag, su-aasha lixaad, abwaanku inta uu yaraa waxaa soo maray farxado badan, ciyaaro badan, dhibaatooyin badan iyo dhagar badan. jawaabta saxda ah waa dhibaatooyin badan. hagaag, Xaaji Aadan isaga oo 4 jir ah waxaa qaatay waraabe, shabeel, libaax iyo xaas. jawaabta saxda ah waa libaax.
su-aal sideedaad xaaji aadan waxaa helay oo caana siiyey wiil geel la jooga, gabar ari la joogta, oday lo la jooga, hooyo waxara la joogta. jawaabta saxda ah waa gabar ari la joogta. su-aalka sagaalaad xaaji aadan aabihii waxa uu ahaa afgarooc, qof aan hadalka aqoonin oo maaragtay uu ku adag yahay. suldaan, afmaal, hadal mirgo. jawaabta saxda ah waa afmaal. su-aasha tobnaad ee ugu dambeysa dhankan su-aalaha doorashada ah, xaaji aadan hooyadii waxaa la oran jiray ba dahabo dhunkaal, ta cawo magan, ja shaqlan warfaa, doobiro geelle. jawaabta saxda ah waa dahabo dhunkaal, waa ba. guud ahaan 10kaas su-aalood waa qeybta hore ee imtixaanka. waxaan u gudbeynaa qeybta kale maaragtay buuxbuuxinta. halkan waxaa ku qoran mahmahyo, waxaa la rabaa in la buuxiyo mahmahyadan. waa dhibcaha saaran 35 dhibcood. aan iska eegno marka. gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. geed waa madal, inta hoos fadhisana waa marag. geed waa madal, inta hoos fadhisana waa marag. halka ma qaadayso. geed waa madal, inta hoos fadhisana waa marag. geed weyn godin yar baa goysa. geed weyn godin yar baa goysa. geed weyn godin yar baa goysa. kor waayeel waa wada indho. kor waayeel waa wada indho. wada indho. kor waayeel waa wada indho. ludaay ismoodmoodeysa. ludaay ismoodmoodeysa. ludayda waxaa laga wadaan caddeeyo waa ayaxa. ludaay ismoodmoodeysa laabta ayay ka xiriirtaa. ludaay ismoodmoodeysa laabta ayay ka xiriirtaa. ludaay ismoodmoodeysa laabta ayay ka xiriirtaa. halkaasna waxaa ku dhan qeybtii kale ama qeybtii labaad ee imtixaankii dowladda sanadkii lasoo dhaafay. waxaan u gudbeynaa qeybta kale oo ah su-aalo toos. marka su-aalaha tooska iska yaraayeen laba su-aalood. su-aasha koowaad waxay leedahay sheeg abwaankii alifay riwaayadda shabeel naagood. laga wada dheragsan yahay, waan soo qaadanay, waan hubaa inaad taqaanaan badankiin. waa xasan sheekh muumin. 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 hagaag. su-aasha labaad, heesa dhaqan waxa uu abwaan xasan ganay ku sheegay magacyo roobku leeyahay. sheeg 3 ka mid ah magacyadaas. meeshana iska fiiriya. haddii sanadkii hore lagu sheegay magacyo roobku leeyahay, sanadkan waxaa laga yaabaa in lagu sheego magacyo geeduhu ama dhirtu leeyihiin. sidaas darteed waa mar walba ulahaw dhugmo dheeri ah. halkan aan sheegno marka jawaabtii oo sax ah. waxaa ugu horeeyay ama ugu horeeya aan dhahno waa mayaay. roobka waa berigii da-ah. mayaay. miiraale. miiraale roobka habeenkii da-ah. miiraale roobka mirta ah habeenkii da-ah. tan kalena waa mahiigaan. mahiigaan. mahiigaan roob aada iyo aada u culus. 3daas roob way ka badnaayen ilaa 7 roob meelahaasi gaarayaan, lakin 3da adiga lagu diray waa 3da. u kala saar murti iyo mahmah. qeybtan marka intaan gudagelin aan bayaaniyo ama aan caddeeyo. murtida iyadu ma laha xaraf raac, xaraf soo noqnoqda oo ku jira ma laha. laakiin mahmahdu waxay leedahay xaraf soo laalaabanaya. tusaale ahaan haddii la yihahdo habar fadhida legdan la fudud. habar fadhida legdan la fudud. xagga waxaa ku jira xarafka fa, xaggana waxaa ku jira xarafka habar fadhida legdan la fudud. marka taas waa mahmah. laakiin murtidu ma laha xaraf soo laalaabta. tusaale ahaan haddii la yihahdo doqoniino waa shil, ma jiro xaraf soo noqday 2 jeer. haddii la yihahdo
haddii la yidhaahdo wiska xaal adduun oo kaleeto waa marti ma laha xaraf soo noqnoqday. haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo adduunow xaalkaaba ama adduunyay xaalkaaba, iyaduna ma laha xaraf soo noqnoqda, waa marti. marka martidu sideedaba ma laha xaraf soo laalaabanaya, xataa sheeko caadi ah ayaa mararka qaar iska noqon karta marti, laakiin maahmaahdu waxay leedahay xaraf soo noqonaya. sidaas darteed meeshan hadda waxa ku qoran haddii xeerkaas loo fiiriyo waxay wada noqonayaan maahmaah, laakiin qaarka siday iyagu u rabeen ayaan idin tusayaa. xidid wadayaal waa xil wadayaal, xidid wadayaal waa xil wadayaal, waa maahmaah, maahmaah, maahmaah. barasho horteed hay nocon, ayagu waxay ka rabeen murti, murti. xidid xeradii way isku furan tahay, xidid xeradii way isku furan tahay, waa maahmaah. ciirtaada dhame ceebtaada yaqaan, ciirtaada dhame ayaa ceebtaada yaqaan, waa maahmaah, maahmaah. tan kale waxaa weeye dariskaagu waa ilaalo aan lagu diran, dariskaagu waa ilaalo aan lagu diran, iyadana waa murti. saas ayay ka rabeen. waxaan usoo gudbaynaa qeybta ugu dambeysa imtixaanka, waxa weeye qeybta saddexaad aan dhaho ayaan usoo gudbaynaa. way qeybtan waxaa lagu yidhi kasoo saar magaca gaarka ah ee ku jira weerahan, magaca gaarka ah ee ku jira weerahan. magacyada waxaad ogtihiin inuu yahay magaca guud iyo magaca gaar ah. magaca guud waa magac la wadaago, magaca gaarkaana waxaa gaar u leh qof, meel ama shay. sidaas darteed aan eegno ardayda akhriska ku wanaagsan waxaa ka mid ah meesha magaca gaara ku jira waxaa weeye hodan ayaa ka mid ah. hodan gabadha la yidhaha waa magaca gaara, qofaa gaar u leh. muqdisho waa magaalo madaxda soomaaliya, muqdisho magaalo madaxda soomaaliya. muqdisho waa magaca gaar ah oo meel kaloo la yihahdo ma jirto, soomaaliyana waa magaca gaar ah meel kaloo adduunka la yihahdo ma jirto. su-aasha saddexaad, aadan cadde waa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka, aadan cadde waa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka. marka jawaabta lagaa rabo waa aadan cadde, waa magac gaar ah oo qof leey. maxkamaddu way xiranta, meeshaan caddeeyo iyagu sida ay rabaan waxa weye in lasoo calaameeyo maxkamadda, laakiin maxkamaddu maaha magac gaar ah, waa magac guud, laakiin waa lagu qasbanaa in sidaas looga shaqeeyo. halkan su-aasha shanaad, axmed waa macallin wanaagsan, axmed waa macallin wanaagsan. axmed oo keliya ayaa hoos laga xariiqayaa, intaas oo keliya axmedkaas ayaana ah magaca gaarka ah ee lagaga baahnaa. qaybta ugu dambeysa waxaa lagu yihi keen ereyadan ereyo la macnaa, keen ereyadan ereyo kale oo lamid ah. waxaa ugu horeeya qaansaroobaad, wada garanaysaan qaansaroobaad waxaa loo yaqaanaa jeegaan, jeegaan. dadka qaar baa yidhaahda caasho carab dheer, caasho, caasho carab dheer, caasho carab dheer. tabantaabo, qof la tabantaabiyo waxa weeye caawin, caawin. gargaar xataa waa noqotaa, gargaar, gargaarsiin. milgo, milgo, qof milga leh, hebel wuxuu leeyahay milgo, milgo calaashan waa sharaf, sharaf. tukulush, tukulush, dabagaale, dabagaale, dabagaale. ama unrays, unrays, unrays. tan u dambeysa waa dhabo ama dhabe, waxay la macno tahay jid ama wado, ama wado ayay la macno tahay. marka imtixaanku waa sidaas.
guud ahaan waxa weeye waa afar qeybood meelaha mana adka dhab ahaantii wuxuu ahaa imtixaan aad iyo aad maaragta u fudud. waxaan rajeynayaa midka soo socdana inuu sidaas u fududaan doono. guud ahaantiin idinkoo wada jira waxaan idin rajeynayaa guul iyo barwaaqo. waxa weeye niyaddana kheyr u sheega. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.